amar ka soo baxay ay oo aan ognahay saan u garaacno saan u tuuriyeyno kob lagu tuuro oo aan ognahay inuu halis yahay oo yahay maxay ahayd najaas yahay oo wixii uu taabto aan maaragtay laguna sakarin oo yahay in mudan tahay in la dhaqo 7 jeer marka ugu dambeysana 8 lagu dhaqo waxaan ka xunnahay in kaamirooyinka dawladdu markay noo yeerto oo na casuumto in meelaha qaar ay la yiraahdo ha baaro aygana aysan diinteena ogoleen in uu shay uu taabtay aan isticmaalno anagoo iska dhaqno maahane laba habeen markii ay gabar xiran tahay haddana waa arrin aad u adag waxa xiran wiilka xitaa markii laga soo tago waa nin raga adkaysi dulqaad buu leeyahay laakiin gabar runtii aadan u xanuunsanaynay laakiin mar haddii maanta la soo daayay oo banaanka ay joogaan ilaahay baan uga mahad celinaynaa iyo dadkii arrintaas ka qayb qaatay sidoo kale tan wali damiin unbay banaanka ku joogaan oo si rasmi ah umaysan helin xorriyadoodii muddo 2 maalin kadib ah waxaa dib xorriyadooda u helay Axmed Salaaman Yuusuf oo ka tirsan Somali Channel iyo sidoo kale Rasmi Yuusuf oo isla Somali Channel ka tirsaneed oo lagu xiray garoonka ciyaaraha ee Stadium Banaadir farxadeydana maanta ma la soo koobi karo muddo 2 cisho hadii ay xabsi ku jireen oo maanta xorriyadooda dib walow ay si ku meel gaar ah ay banaanka u joogaan Raxma Yuusuf iyo wiilka kale ee kamid ah shaqaalaha TV-ga Somali Channel on ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa mid kale jirtana waxay tahay aamino in una baahan in laga hadlo damiin ay maanta banaanka ku joogan qofkana marka uu dambiile yahay ama dambi lagu soo qabto ayaa la dhihi karaa qofkan dambigaas lagu heystaa